السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما أنتوا بيش شراي تاي أفر لبض كن يلا بعتنك وركض دبلوماسية عالم جانت كوهي نالك وحكم دا بريتيانو صار تيليس كدلال كدتك كإيمان يا أن لكريتين دونين أبي أحمد أوشيجي إنه نبضين يدلك كان تخلص يعدو جود جودها يدي بدبع قرح يعيد كلينتين أو كدعي مقدشة يبيدبع هل كادور كاركسي كلا سعتان وبالخير تيفي هذا بينتينا نقولين برنامج كنا مانتا waxaan idinku codsanaynaa haddaad channelkayga ku cusub tahay inaad subscribe saarto gambaleelka mufrato si aad noqoto daawadaha ugu horeeya ee la socda ama arka wixii aanu soo gelino Bilkhayr TV waad ku mahadsantahay haddaad hore nolo joogtay dhammaantiinba aan warkeena ku bilownay xagga iyo bariga Afrika iyo Soomaaliya iyo Ethiopia aynu dhaqaaqnay ugu yaraan 6 qof ayaa ku dhimatay 11 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii saaka ay qaraxyo ka dhaceen magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo magaalada Baydhabo ayaa wararka laga helaya ayaa sheegaya in 5 qof ay ku dhinteen 6 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii qarax la dhigay maqaayad lagu cunteeyo oo qarxay sida dad goob joogayaal ay sheegeen maqaayada la qarxiyay ayaa ku taala controlka koonfureed ee magaalada Baydhabo dadka dhintay iyo kuwa dhaawac ah waxa ku jira haween dhanka kale afayeenka booliska Soomaaliya Dhamme Sidiiq Aadan Cali ayaa u sheegay warbaahinta in gaari waxyaabaha qarxa lagu soo raray lagu weeraray xarunta laanta cashuuraha oo ku dhow dekada weyn ee Muqdisho afayeenka ayaa sheegay in ciidanka boolisku ka hor istaageen qofka waday gaariga oo qaruxu saarnaa inuu gudbo gudaha xarunta isla markaana ay rasaasayeen isagoo oo gaariga ku qarxay dibadda xarunta 5 ka tirsan ciidanka booliska ayaa afayeenku u sheegay in halkaasi ku dhaawacmeen ilaa hadda ma jirto cid la sheegatay ama qaraxan sheegatay mas'uuliyadiisa maanta ka dhacay Muqdisho iyo Baydhabo Muqdisho ayaa 6dii bilood ee ugu dambeeyay ka nasatay qaraxyadii loo geysan jiray alaaba ama ka dhici jiray ee loo adeegsan jiray baabuurta iyo xaaladda ammaanka oo ka soo reynaysa sidii markii hore ay ahaan jirtay dhex mushaaxayna wararkeeni dhageystayaal iyo daawadayaal imika Ethiopia Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Dr. Abiy Ahmed ayaa sheegay rabshadihii maalmihii ugu dambeeyay ka socday dalka Ethiopia ee ay soo maleegayeen wax uu ku sheegay Dr. Abiy cadawga dalka Ethiopia inay laamaha ammaanka ee federaalka iyo deegaanka Oromada ay ka soo afjareen Ra'iisul Wasaaraha oo shir jaraa'id oo uu kaga hadlayay xaaladda dalka Ethiopia uu ku sugan yahay qabtay ayaa sheegay dawladdu inay qabatay ama gacan ay ku dhigtay dhacan ku dhiglayaashii dilay fanaankii caanka ah ee Haalo Odessa Hundessa yiraahdeen balse ay harsan yihiin kooxihii dilkaasi soo maleegayay dawladduna ay ka qaadi doonto tallaabo adag shaqajiyaadka dilka inay geysteen looga shakiyay waa la hayaa waxaanu dilkaasi lug ku lahaa shakhsiyaad qaab dhismeedka dawliga ku jira ayuu yiri madaxweynuhu aragtidayda ayuu yiri nacaybka xambaarsan ee ku salaysan qowmiyadda ama siyaasadda dalka Ethiopia wixii hadda ka dambeeyay boos ugama banaana ayuu yiri xogaga doonaya inay dalka Ethiopia dhiig ku daadiyaan waxaan u sheegayaa inay riyadaasi ay tahay waxaan soconayn marnaba aanay u rumoomi doonin ayuu yiri Dr. Abiy Ahmed oo telefishinka qaranka ee dalka Ethiopia ku soo muuqday isaga oo ku labisan labiska ciidamada ilaalada qaranka ayaa mahad ballaaran u soo jeediyay xogaga magac qabiil ama siyaasadeed ku soo gabanaya ayuu yiri eena baraya buu yiri madaxweynuhu dagaal caasimadda dhexdeeda laga sameeyo waxaan ku khasbanay inaan tusno dagaal magaalo wax uu taraya inaanu jirin aanu iska qaban doonaa oo waanu iska caabi doonaa ayuu yiri waxa kale uu sheegay isagu sida guusha looga saaro xogaga doonaya inay Facebooka ka soo riyoodaan waxaan u sheegaynaa inay marnaba riyadaasi u rumoobayn wixii hadda ka dambeeyana waa in la ogaadaa dalka Ethiopia aragtida kala duwan ee siyaasadeed in lagu meel marin doono ayuu yiri oo kaliya si nabadgelyo ah iyo si dimuqraadiya in lagu wada noolaado weeye buu yiri dambiilayaashana si degdeg ah ayaan sharciga u horkeeni doonaa si mudankooda loo mariyo ayuu yiri Dr. Abiy sida dawladihii hore dadka aan xirno ama aanu soo qabanno cidiyaha kama siibayno guri mugdi ahna kuma xirayno si aan u sheegaysiino mana garaacayno dhibaato uma geysanayno si sharciga waafaqsan oo kaliya
ayaanu kula xisaabtamaynaa ama ula dhaqmaynaa mudankoodana waa aanu marinaynaa ayuu kusoo gabagabeeyey hadalka madaxweynaha. iminkana aynu u dhaqaaqna dhanka iyo ingiriiska weli far kama qodno wararkeena caalamiga ah. dalka ingiriiska ayaa maanta furaya qaar ka mid a goobaha ganacsi oo u xirnaa xayiraadii ka dhalatay fayraska corona, iyada oo dalkaasi ay ugu dhinteen in ka badan 43,000 oo qof. goobaha laga qafiifiyey xayiraadaha ayaa waxaa ka mid ah maqaaxiyaha, baararka, goobaha isqurxinta iyo shaneemooyinka, iyada oo tani qayb ka tahay dadaal dowladda Britain dib ugu soo kabayso dhaqaalaha jiilbaha u dhigtay ee saameynta COVID-19 ku habsaday. dhanka kale, xukuumadda ayaa soo saartay liiska dalalka dadka ka imanaya aanay geli doonin karantiil ku jihaysan xakameynta fayraska. liiska oo ka kooban 59 dal iyo 14 deegaano maamul ahaana hoostaga boqortooyada UK ayaa waxaa ku jira Greega, Spain, Faransiiska iyo Belgium, waxaana tallaabadan ay dhaqan galaysaa 10 bisha Luulyo ama July. wixii ka dambeeya liiskan socotada ka imanaya dalalka ay ka mid yihiin Shiinaha, Mareykanka, Sweden, Portugal ayaa ka mid ah dadka geli doona 14 maalmood ee karantiilka ah. dowladda Britain ayaa soo rogtay bishii June tallaabooyinka ay ku adkaynayso soo gelitaanka dadka si loo xakameeyo fayraska COVID-19 iyadoo ay hoos u dhacayaan kiisaska cusub ee cudurka COVID-19. Ra'iisul Wasaaraha UK Boris Johnson oo shalay ka hadlay shir jaraa'id oo uu ku qabtay xafiiska ku yaala Downing Street ayaa farta ku fiiqay intii ay karantiili gelin lahaayeen dhammaan dadka ka imanaya adduunka oo idil ay iminka gooni u soc ka dhigi doonaan goobaha uu ku tilmaamay inay nasiixumo aanay ka jirin hanaan lagu xakameeyo fayraska. wasiirka arrimaha dibadda Portugal Augusto Santos Silva oo la hadlay warbaahinta kana jawaab celiyay go'aanka xukuumadda Britain ay ku tilmaantay mid macno la'aan ah oo aan cadaalad ahayn ayuu yiri. Mr. Silva wuxuu intaas ku daray, waa wax aan macquul ahayn. UK waxay 7 jibaar ka kiis badan tahay COVID-19 Portugal, markaa waxa ay ila tahay intaasi aanay ahayn habka xulafada iyo saxaabadu ay iskula dhaqmaan buu yiri. dhinaca kale, war saxaafada ay soo saareen shirkadaha duulimaadka ee EasyJet iyo British Airways ayaa tibaaxaya in tallaabada dadka lagu karantiimaya ay tahay mid aan caqli galahayn oo dhaawacaysa dhaqaalaha iyo nidaamka duulimaadyada dunida. inkastoo go'aankan ay soo saartay dowladda Britain, haddana waxay qayb ka ay tahay maamulada Scotland, Wales iyo Ireland ka waqooyi, kuwaas oo ku dhaliilay xukuumadda ra'iisul wasaaraha uu ka yahay Johnson go'aankan. ra'iisul wasaaraha Boris Johnson ayaa shir jaraa'id waxa uu ku sheegay in inkastoo xayiraadu ay badbaadinayaan nolol badan oo dadka, haddana waxyeelo weyn ay u geysteen dhaqaalaha ayuu yiri. isagoo arrimahaasi ka hadlayay wuxuu yiri, waxaan shaki ku jirin xayiraaduhu inay badbaadiyeen 100,000 oo qof, laakiin hadda waxay saameyn aad u ba'an ku yeelanayaan habka nolosheenna iyo dhaqaalaheena iyadoo oo aan weli xayiraadahaasi si dhammaystiran loo wada qaadin. yoolkeenu wuxuu ka dambaynayaa buu yiri, ama uu noqon doonaa inaan dad badan aanu fasaxno si noloshooda caadiga ah ay u sii bilowdaan ama u sii wataan habnoloodkii ay lahaayeen. markaasi halkaad kala socotaan waa Bilkhayr TV.